السلام عليكم أصحابتي qaaliga ku xiran channelkayga cunto karinta iyo macmacaanka ee Mema Cooking and Sweeties waa walaashin Mema oo idin wado muuqaal cusub fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe inoo saar haddii aad hore inoola joogtay qaybta hoose ee commentiga ha laga arko ha ka hilmaamin muuqaalkiina like saarto waayo lagtu waxay ka caawinaysaa inuu dad badan gaaro waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan asxaabta qaaliga sida ujeedaan waxaa idin soo diyaariyay malawax waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan qaabka u diyaariyay marka hore caano diiran oo koob buuxo ama bakeeri buuxo ayaan ku darayaa bakeeri kale ayaa soo cabirayaa waa ku daray caanaha diiran ayaan rabaa inaan ku qaso malawaxa hal qaando wax yar dhiman oo yar aan ku darayaa carfisa ama faniila sida u taqaanaan xabad ukun ayaa ku darayaa ukuntan waxay ii siinaysaa softi iyo jileec caanahana sidoo kale jileec ayay ii siinayaan iyo dhadhan wanaagsan waxaa kaloo ku darayaa sixin laba qaando yar oo sixin ah sixintana caraf ayay ii siinaysaa badanaana waan isticmaalaa marka waxaa rabaa inaan si fiican ku qaso qaando ayaa ku qasaya sida ujeedaan asxaabta qaandada ayaa rabaa inaan ku isticmaalo haddaa rabto waa shiidi kartaa makiinad ayaa ku shiidi kartaa si fiican oo isku dhex galayaan haddii qaandada si ayar ugu qastana sidoo kale sokor ayaa ii diyaarsan sokortan qaandadaas yar waaye shanteeda qaando marka cabirka intaas waaye qiyaasta iyo marna ka qaldoomin waa ka sokorta ayaa rabaa deerna inaan ku qaso oo aan si fiican isku dhex galiyo welibana aad iyo aad markii ay dhalaasho kadib ayaa rabaa burka inaan ku daro burka aan ku daraayo waxa waaye 2 koob oo bur ah waaye hal koob oo caano ayaa gadaal uga daraya oo ii harsan marka qiyaasta waa 2 koob oo bur ah 3 koob oo caano ah marka waa ka qiyaasta intaas waaye yeesan kaalumin waan isla keenayaan dhadhankoodana aad iyo aad ayuu wanaagsanaanayaa sida ujeedaan burka ayaa dirtaan qasaya wali waxaa rabaa inaan si fiican isku dhex geliyo burka makiinad waa ku shiidi kartaa halaabahaniti ama ayro qasi kartaa hadda koob kale burka ayaa ku daray muhiimaddu waxay tahay inaad si fiican isku dhex gelisid ayrna u qastid si yacni burkaaga uu noqdo bur liisho ah oo aan burtur ama wax aan lahaynin oo nadiif ah waa fahanteena filayaa malawax waxa waaye anaga dhamaantii u dubi naqaanaa laakiin wax yar ayaa lagu kala duwan yahay marka waa ka waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen qaabkii iskugu daray waxyaabii aad ka sameynayay malawaxa sida ujeedaan qasitaanka wax yara u dhiman sida ujeedaan uu yara adag yahay sida dareemayo inkastoo hadda si fiican u qasay caanaha bakeeri kale ku daraya haaf ayaa ugu daraya si yacni aan igaaga badanin oo igaaga yaraanin laakiin qiyaasta iskugu talagalay malawax waxaa waaye 3 koob oo caano inaa ku qaso malawaxana caanaha ku qasaa caano diiran waaye caanaha diiran mar walba waxaa qasayo yacni si fiican in isku dhex galaan ay iga saacidaan taasna waxaa waaye waa faa'iido ayadana inaan fahanteen afrijeenaya waxaa waaye biyaha diiran ama caanaha diiran marka wax ku qasayso maasha Allah ay u fiican yihiin hadeerna waa ka ku dhameeyay bakeeri kala caanaha malawaxeenina waa diyaar waxaa waaye dubitaanka inoo harsan asxaabta qaaliga halka waxa igu diyaarsan birtaawada oo talagalay inaan malawax ku dubo iyo subaga sixintaha aan rabo inaan korka uga shubo aan sixina isticmaalaya wax yar saliid yar waa laga yaabaa inaan ku darsado laakiin badanaa sixinta isticmaala haddii ay marka ay oolina saliid caadiga isticmaala saxankaasna waxa ugu talagalay malawax inaan saarto xabad ugu horeysa ee malawaxa ayaa bilaabay sida ujeeda malawaxina biyo waaye waxyaas cadadka ka dareemaysa malawax waxa waa caano booraha maadaama biyo kulul ah ku qasay xoogaa yar go'ay qaybta salka hoos ku hartay laakiin dhib ma lahan way ka baabi'eysaa marka xabad ugu horeysa waa ka asxaabta qaaliga saliid ayaa korka uga shubaya dhibatana ma jirto yacni wax culeys ah ma lahan malawaxina fudeed iska waayay sida ujeedaan marka sidaas yani u sameynayo oo kale yani waxaa rabaa inuu salka hoose kasoo foqo oo uu noqdo yani markii aan gedinayo mid soft ah aanan iga kala go'in oo fudeed ah marka waa ka qaybtoos guduud ayuu ka noqday hadeerna waa ka waan gedinayaa malawaxa inuu sidan dhan uu guduto waxa iga saaciday dabka aad u gaabay dabka iska gaabi si dhaxdan ugu bislaado laba dhinacna uu guduto marka xabad ugu horeysa waa ka sidaas ay ku soo baxday waxa rajeenayaa inaad ka hesheen dabkan ina iska gaabisid muhiim waa mar walbo aniga markaan waxyaabaha malawax iyo waxyaabo kale sameynaa badana dabku iska gaabaya si yacni guduud ay ugu noqdaan xabadii labaad ayaa deer ku bilaabay waa ka hadee fudeed waaye wax yar inaa saas warwareejiyo oo waxaa laga yaabaa dhinaciisa u kala gaarsiiyo
laakiin asagaaba iska jilcan malawaxa adag ma aha oo si fudud ayuu yacni ku gaarayaa dhammaan birtaawada marka waa kaas saliidii sixinta aheyd ayaa korka uga shubaya sixinta isticmaala sixin lo waaye malawaxan caraf ay siinaysaa inuu malawaxii guduud noqdaan waxaa ka qayb qaadanaya saliida waaye mar walbana waa idin sheegaa haddii waxyaaba aad dubaysid saliid haddii aad ku shubto guduud ayuu noqonaya xabadii labaadna waa ka bixiyey dabkan iska gaabi haddee muhiim waaye malawaxan haddii ani in badana waxaa isticmaala yacni aan ka dhigaa inaan gaduudiyo waayo malawax markii uu cadaan uu yahay dadka qaar aa jecel laakiin ani markaa gaduudiya aad usii jeclahay oo ani dooqeyga ah xabadii labaadna waa ka xabada saddexaad markii aan dubo wixii ka dambeeya waxaa waaye haddee waa iska fahanteena filaya markaasoo dhamay kadib ayaana muuqaalka idin tusinaya sida uu kusoo baxay dhammaan malawaxeeni xabadan waa xabadii ugu dambeyday ee malawaxa aan ugu talagalay inaa idin tuso qaabka uu dubayo kuley dad waxaa jira isticmaalo birta malawaxa birta canjeerada oo ku dubo malawaxa bir malawax loogu talagalo way jirtaa lagaan birtaawada caadiga ku dubaya kaliya waa ku shubaya ku wareejinaya muhiimada waxay tahay waxa aad haysatid inay kugu filnaadaan ana waxyaabaha haysto ayaa isticmaalaa hadda koob ayaa ku isticmaalaa sida ujeedaa inaa ku shubo hadda tusaalan bir canjeer haysatid waa ku duban kartaa haddii aad birtaawo haysatid haddii aa yacni birta isticmaalaya nan isteeg waayo taasna waa inaa qodobada ku darsataa ma aha bir oo caadiga marka malawaxana igama qabsanayso oo way yacni waa fudeed inaa ku dubtid malawaxa marka asxaabta qaaliga sida ujeedaan xabadii ugu dambeeyay malawaxa waxaa waaye diyaar waaye kaliya inaa ka bixiya i harsan waa ka way soo gaduudatay dhanka kalena labada dhinacna gaduud waayay maasha allah saxankii ayaa loogu talagalay ayaan saaraya malawaxa inta kale ee i harsanne waan soo dubayaa markii aan soo wada diyaariyo dhammaanteena ayaa isku soo laabaneynaa hadde waa ka isla socod wanaagsan waa ka asxaabta qaaliga waa soo dubay dhammaan malawaxa diyaar waaye saxankaas kale waxaa ugu talagalay markii aa malawaxa laalaabo oo kale inaad dul saarto haddii aad rabto waa jari kartaa haddii aad doontana waad laaban kartaa hadba waa sida adiga kuu fudud ama dooqaaga ah aan sidaasaa u laalaabaa badanaa ama waan jarjaraa ano 4 qayb ka dhigayo malawaxa hadda qaybtan malawaxada idiin soo geliyay waa laalaabaya 8 xabo ayaa ka dhigay inta kalena de waa anagii cunay oo yaa maasha allah waa balsii sugayba intuu dabka saarnaa ma fahamtay marka 8 xabo waxaa ugu talagalay inaa idin share gareeyo qaabka malawaxa uu kusoo baxay dhab ahaanta waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen dhammaantood gaduuda ka dhiga softna way yihiin dhadhan wanaagsan sidoo kale maasha allah sokorta iyo ukunta iyo waxyaabaha caano boora dhammaantood isku dheeli tiran yihiin cunto mar walba waxaa laga qaataa isku dheelitirnaanta waxyaabaha laga sameeyey markaasoo kale way iskeenayaan dhadhanka iyo carafta iyo wax waliba maasha allah caraftan waxaa iga saaciday faniilada ama carfisada bedelkeedana heel waa isticmaali kartaa marka aad qasaysid marka waa kaa malawaxeena 2 qayb ayaa ka dhiga oo min 4 xabo ah maasha allah aad iyo aad ayaana ula dhacay waxaa rajeynayaa idinkana sidoo kale inaad ka hesheen midda xigta asxaabta qaaliga channelkeena wuxuu gaaray 1000 subscribe oo ah 1000 ugu horeeyay waana ku mahadsantihiin sida wacanano garab taagan tihiin aad iyo aad aan kaaga mahad celinaya waa inoo muuqaalka xigo insha allah sida